Ku soo dhawaaw dalka Cumaan, dhul ay ku kulmaan dhaqamo qadiimi ah iyo qurux dabiici ah oo cajiib ah. Cumaan waxay ku taalaa koonfur bari gacanka Carabta, waxayna xuduud la leedahay isku tagga Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Yemen. Dhinaca kale ay ka xigaan badda Carabta iyo gacanka Cumaan oo leh xeeb aad u dheer. Laga bilaabo lamadegaanka dahabka ah ee Wahiba Sands ilaa buuraha cagaaran ee Dhofar. Cumaan waxa ay leedahay dhul kala duwan oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Bariga Dhexe. Caasimadda waa Muscat, waa magaalo nadiif ah oo leh suuqyo dhaqameed iyo meelo caan ka ah sida masjidka weyn ee Suldaan Qoobaas iyo tiyaatarka boqortooyada. Xeebta Cumaan waxay dhirirkeedu ka badan yahay 3,000 oo kiiloomitir, taasoo ku habboon kalluumaysiga, quusitaanka iyo sahminta jasiiradaha qarsoon. Dalka waxaa kaloo caan ka dhigay fooxa frankincense, badeeco ganacsi oo qadiimi ah oo hore u taajirisay boqortooyooyinkii deegaanka. Dadka reer Cumaan waa dad degan, martisoor badan oo ixtiraam badan. Carabigu waa luuqadda rasmiga ah, Islaamkuna waa diinta ugu weyn, balse martida diimaha iyo dhaqamada kale waxaa si diiran loogu soo dhoweeyaa dalka Cumaan. Dhaqaalaha dalka waxaa sal u ah dalxiiska, saliidda iyo kalluumaysiga, waxaana dowladda xoogga saartay dalxiiska cagaaran iyo mid dhaqameed. Haddii aad jeceshahay fuulitaanka buuraha Hajar, booqashada qalcadda Niswa ama daawashada xilliga roobka Qareef ee Salalah, Cumaan waa dal cajiib ah oo la yaab badan.